kusoo dhawow riwaayadda sahanka nolosha. tani waa qaybta 9aad xalqadda 11aad. xalqaddii 10aad waxa ay noo joogtay kabtan xasan oo ku orday qaylada qof dumar ah oo baabuur la jiirsiiyey. haddaba qofkaasi yuu noqon doonaa yaana gaariga ku dhuftay. waxaan kaloo aan aragnay xaawakiin oo sheegtay inaysan weligeed dib ugu laaban doonin mooge. sheekh rooble waxa uu kula kaftamay in dirir ay guursato maadaama uu isbeddelay. waddadee ayay qaadi doontaa? tan kale ha hilmaamin dirir iyo kalluumaysatada in xaalad adag ay ku jiraan oo guddoomiyaha ay ka doonayaan in baaritaan degdeg ah la sameeyo. maxaa xaaladdooda laga yeeli doonaa iyagana? haddaba halkan ka dhegayso sheekooyinkaasi iyo kuwo kale oo xiise badanba isla hadda. waa dhibaato weyn shilkan dhacay, weliba si lama filaana. ma garanayo sida xaalku uu noqon doono. dirirow istaji, wax kasta way hagaagayaane. xaawakiin waxa ku dhacayna waa ka xunnahay dhammaanteen. hibo, sidee wax u gaareen xaawakiin? bal ii sheeg. ilaa hadda lama oga sida ay wax u gaareen, laakiin dhakhaatiirta ayaan sugaynaa inay nala wadaagaan xaaladda xaawakiin. waan sugaynaa, ayaga ayaa noo imaan doona. may nala hadlaan oo wax noo sheegaan? maxay nooga aamusan yihiin? ha la isdejiyo. xaaladda dhacday waa shil kadis ku dhacay. dee waa nasiib darro waa ujeeddaan, waxaana wax iska qoran weeye. marka xaawakiin waxay ku dhacay wax qoran weeye. ha la sugo, ha la sabro, ha la isdejiyo. kediska maxaa ku beegay xaawakiin? waxaanoo kale mar kasta ayay dhacaan. dirirow aan ka sugno takhaatiirta warbixintooda. yaan iswaalno oon ka hor dhicin takhaatiirta aan sugno. roona barra baa oge. aniga aad ayaan uga welwelsanahay shilkan dhacay. maskaxdayda way qaadan la'adahay. dirirow waxaan dhacay waa shil caadiya sida noo muuqata. dee ma garanayo wax kaloo qarsoon, laakiin wax walba way soo bixi doonaane aan dul qaadano oo aan sugno. waxaan wax laga xumaado waaye. waxa ay samaynayaan wadayaasha gawaarida si xun ayay baabuurta u wadaan. yaan annaga wax iska suuraysan dirirow. shilkan dhacay waa shil kadis u dhacay sida noo muuqata. waana ka hor sugaynaa wararka baaritaan ka soo baxa. maya sheekh rooble, taasi suuragal ma aha, igamana dhaadhacayso. sabab guddoomiye hibo, maxaa daliil u haysa arrintaasi? waxaan kuu sheegayaa sheekh rooble in arrintaani ay shil caadi ah ka weyn tahay. marka aan u fiirsaday waana la ogaan doonaa baaritaanka kadib. xanaaqayaana idinka tanbadin, waa la ogaan doonaa shilka. hadda waa goor hore, waxba kama qiyaas qaadan karno guddoomiye ee aan sugno horta xoogaa. sababta aan u leeyahay waxaani shil ma aha, waa sida uu daroowalkii gaariga waday uu u cararay markii uu gabadha gaariga jiirsiiyey. taasi ayaa igelisay shaki ah inuuna waxaani shil ahayn oo ay tahay ku talagal. wax kasta way dhici karaan hibo, waa runta, laakiin aan sugno warbixinta baaritaanka booliiska deegaanka daaqsan. markaasaa wax la ogaan doonaa. kollay waa la arki doonaa sida ay wax noqdaan iyo natiijada baaritaanka ka soo baxda, laakiin uma malaynayo waxaan dhacaya inay yihiin shil oo keliya. guddoomiye, waxaan filaya inaad ka xanaaqsan tahay shilka dhacay. dhammaan waan ka xunnahay waxa dhacay, laakiin aan sugno jawaabta ka soo baxda ama ka soo baxaysa dhinaca baaritaanka. waana inaan isdejinnaa oon sugnaa jawaabta intay ka soo baxayso. waa la arki doonaa, laakiin waxaan idiin sheegayaa in shilkaas dhacay gaarigaas xaawakiin jiiray uuna ahayn shil caadi ah. yaah guddoomiye, maxaa tiri? haa, wuxa uu ahaa shilkan ama uu iila ekaa mid ku talagal loo sameeyey. markaan qiimeeyey waxaan arkay daroowalkii oo ka sii baxsanaya goobtii uu shilka ka dhacay. waa iga hubtaa soo maaha guddoomiye hibo? si aad ah ayaan u hubaa, weliba indhahayga ayaan ku arkay markuu daroowalka gaariga ka sii cararayey markii uu ku dhiftay xaawakiin gaariga kadib. waxaan la yaabanahay dadka jariimadaas ka dambeeya ee haddana iska baxsanaya. waa wax lala yaabo runtii. laakiin guddoomiye, waayo cidda doonaysa inay waxyeello u geystaan guddoomiyaha iyo saaxiibaddeeda aadka ugu dhow. waa arrin la soo abaabulay sida ay iila tahay, laakiin baaritaan ayaa lagu samayn doonaa. taasi waa sababta aan u leeyahay shilkaani mid caadi ah ma aha oo aan ugu soo celcelinaya hadalkaasi. guddoomiye, waa arrin la yaab leh dhacdadan.
ama shilkan dhacay waana mid ugub ku ah deegaankeenna daaqsan oo nagu cusub dhammaanteen waxay iila muuqataa shirqool la soo maleegay sheekadan waana la ogaan doonaa mar dhow waxaan ahay dhakhtarka xaawakiin waan garanay haye haye bal noo sheeg gabadha xaaladdeeda ka warran ma soo eegi karnaa hadda waa sidee digtore lama soo eegi kara ee isdejiya fadlan bal sug dirir dhakhtarka ha noo warramo oo aan dhegaysan waxa uu noo sheegayo ha noo sheego muxuu nooga diidayaa inaan gabadha soo aragno oo aan xaaladdeeda soo ogaanno waxbaa siya kolley waxaan idiin sheegayaa in dhaawac ka soo gaaya madaxa sidaan aragnay hadda xaawakiin waan garanay dhaawaca madaxa ka soo gaadhay ka sokow hadda waxay gashay suuxdin ama koomo kooma dirir murugada iska dhaaf iyo dhabanada aad haysato ee isdeji fadlan tartiib is adkee nin oo kuguma ogaan jiray lacag dirir waa ku jiray dirir tartiib dirir sahanka nolosha tawfiiqow magaaladu aan ka soo baxnee halkuu ku yaallaa gurigii noola soo tilmaam saaxiib guriga waa qolkaas keligiis meesha ku yaalla meeshan waa meel cabsi ah oo cidlo ah maba la moodo in meeshaan cidi joogto guriga waa kan ridwaanow albaabka waa laaban yahay ma joogaa mukhtaar mise waa maqan yahay yaa garanay talow waa garaacaynaa si aan u hubinno in lagu jirayo in kale waa runtaa saaxiib ee noo garaac albaabka waayo soo gala waa mugdi qolka tawfiiqow dhib ma laha ee halkaaga iska istaag saaxiib mugdiga ha ku mashquulina waan ogahay ii warrama ridwaan iyo tawfiiq waa la fiican yahay gurigan wuxuu ku yaallaa geeska ugu shee daaqsan haa wuxuu ku yaallaa geeska magaalada waxaan u doortay sababa amni dartood maxaad war ii haysaan hawshii aad amartay waa la fuliyey waa gartay sidee wax loo fuliyey ii sheeg bal haddii aan kuu sheego warka ku saabsan shilka waxaan kuu xaqiijinayaa in la fuliyey oo ay suurto gashay waa fahmay kow ii wad sheekada waxaa fursad lagu helay guddoomiye hibo iyo xaawakiin oo wada socda weliba waxay marayeen agagaarka saldhigga booliiska haye gartay ma sahlanayn in meeshaas wax laga fuliyo laakiin waa lagu dhiiraday maadaama amarkaasi aad adiga bixisay waa sax waa mahadsantihiin waxaan kuu xaqiijinayaa mudane in hibo si dirqi ah ay uga badbaadday shilka gaariga oo sidee ku dhici kartaa laakiin waxaan kuu sheegayaa in xaawakiin ay si daran ugu dhaawacantay halkaasi bas sidaas ayay wax u dhaceen mudane dhaawaca xaawakiin waa mid fududaynaya danaheenna iyo arrimaheenna si la mid ah kan hibo oo kale waa sax mudane mukhtaar in xaawakiin la dhaawaco waxay ka wanaagsan tahay in waxba la fulinin oo lagu fashilmo howlgalkii la qaaday mudane meesha howlgalka laga fuliyey waxay ahayd meel halis ah halis sidee ah sababtoo ah goobta shilku ka dhacay waxay ahayd meel saldhigga booliiska ka soo horjeeda marka wixii la doono laguma samayn karin goobtaas tawfiiq iyo ridwaan waad mahadsantihiin haddana waan sii baxayaa waa yaab maxaad la yaaban tahay ridwaan bal ii sheeg aan ogaadee waxaa la sameeyey wax aan dhaqankeenna sal iyo raad ku lahayn oo nagu cusub aad ayaan ugu xumay arrintaas maxaad ka waddaa warkan ii jilci ridwaan waxaan ka soo horjeedaa in haweenkeenna waxyaalo loo geysto sidoodaba meel kasta ay joogaan laakiin waxaad ogaataa in shaqadu muhiim tahay in diiradda la saaro mukhtaar awood badan ayuu leeyahay marka loo eego ama la barbar dhigo mooge sahanka nolosha isbitaalka waa lagu daahay walle aan sheekh rooble hibo dirir shah uga soo qaado halkan aad baa loo gaajaysan yahay aad baa loo haraadsan yahay walaalo waxaad i siisaa 3 koob oo shaah ah waa yahay waa diyaar aad baad u mahadsan tahay mudane waa kanaa shaahigaagii sheekh rooble shah ayaan idiin keenay maadaama cusbitaalka aan ku raagnay oo aan halkan maanta ku daahnay ee hoo iga qabo mahadsanid kabtan xasan guddoomiye hibo adigana hoo shaahan qabso
aad baa u mahadsan tahay kabtan xasan. aaway ninkii dirir ahaa halkee ayuu aaday miyuu baxay asaga maya muu bixin kabtan xasan oo dirir waa uu joogaa. hayehe halkee ayuu aaday marka dirir waxa uu u galay xaawakiin si uu u soo fiiriyo xaaladdeeda iyo waxa ay ku sugan tahay hadda marka gudaha ayuu ku jiraa. haa sidaa dheh waan gartay wuu imaanayaa kolley markuu soo eego xaawakiin. waxaan rabaa inaan ka faa'iidaysto fursaddan aan labadiina idinku helay sheekh rooble iyo hibo sideed u aragtaan haye khayr sheeg bal khayr sheeg maxaa cusub kabtan xasanow? taliya tawakal waxaa u soo dhacay telefoon aan la aqoonsan oo qarsoon anigoo la jooga waxaana ku wada sugnayn saldhigga booliiska. haye kow muxuu dhahay qofkaasi soo wacay marka? telefoonkaasi qarsoonaa waxa uu guddoomiye hibo ku eedaynayey musuqmaasuq la xidhiidha shatiyada kalluumaysiga. ya maxaad tidhi musuqmaasuq ah? si wanaagsan wax iigu bayaana kabtan xasanow waa yaabana anugu. walle waa sida aan idiin sheegayo qof isqarinaya ayaa soo wacay taliya tawakal wuxuuna u sheegay oo uu ku eedeeyey hibo musuqmaasuq ku saabsan ruqsadaha shatiyada kalluumaysiga. waa yaab walle waa yaab waa gartay haye kolley qofkaas wuxuu ahaa qof isqarinaya wuuna diiday inuu sheego magaciisa iyo halka uu joogaba. aad ayaan u fahmay warkaaga kabtan xasan waa gartay haye marka sidaas ayay wax u jiraan arrintana waxa ay na soo gaartay galabta inta aanu shilka dhicin wax yar ka hor ayayba ahayd. waxaa jira inaan helnay qaladaad musuqmaasuq ah oo ku jiray diiwaankii yaalay xafiiskii guddoomiyihii hore. taasi waxaa laga yaabaa inay muujinayso musuqmaasuq dheeraad ah. waa fahmay hadda iyo dan waa inaan ka fakarnaa sidii wax laga yeeli lahaa iyo waxa aan samayn lahayn taas ayaa muhiim noo hadda hawshaas ayaa noo taalla. xaqiiqdii waxaa noogala baahan yahay inaan aad uga fakarno wakhti badan gelino oo aan iska kaashanno sidii arrintan aan wax uga qaban lahayn. arrintan waxaa wax looga qaban karaa in si iskaashi iyo wadajir ah loo wajaho dhibaatada iyo musuqmaasuqa ku saabsan ruqsadaha iyo shatiyada kalluumaysiga. hiboy taasi waa biyo kama dhibcaan inaan iska kaashanno si runta loo ogaado oo xaqiiqda aan u soo taabanno. waa waajib inaan ka hor tagno dhibaatadan ilaa aan gaarno salkeeda oo aan ogaano wax walba oo ku saabsan ruqsadaha shatiyada kalluumaysiga ee muranka uu ka taagan yahay shakigan uu ka taagan yahay. waa ku mahadsan tihiin sida aad diyaarka ugu tihiin inaan xallinno arrimahan sheekh rooble iyo kabtan xasan. guddoomiye tani waa waajibkeenna waana qasab waa lagu qasbayaa tani. waa inaan si degdeg ah uga howlgalnaa arrintan inta dhibaato kale aysan dhicin. waa runta waa tii horay loo yidhi biyo intaysan ku soo gaarin ayaa la yska moosaa. anigu waa idinku waafaqay hawshan inaan degdeg wax uga qabanno si wada jira weliba diyaar ayaan u ahay. sahanka nolosha. walaal yaa doonaysa adiga? walaal waxaan doonayey gabadhaan la dhaho xaawakiin. tartiib u soo gal qolka waa taasaa xaawakiin. wejiga xaawakiin aad ayuu u nuurayaa waa mid cad iftiin khafiifa ayaa ku daaran waa adduun way suxsan tahay wallaahi haddii ay mar uun ila hadli lahayd waa ii fiicnaan lahayd. walaal aad ayaad u qiirasan tahay adiga waan ka xumaa aniga. mahadsanid kalkaaliso. la hadal walaal. soo ma suuxsana sidee ii maqlaysaa xaawakiin kol haddii ay suuxsan tahay? waad la hadli kartaa adiga waayo bukaanka asigoo suuxsan ayuu mararka qaar wax maqli karaa. waayahay kalkaaliso. marka waa caadi waad la hadli kartaa dhib ma lahan. waayahay kalkaaliso. waan soo laabanayaa aniga kursigaas waa ku fadhiisan kartaa. dhib ma laha waxaan doonayaa inaan wejigeeda toos u arko halkayga ayaan ka daawanayaa. xaawakiiney waxaan ka shallaynayaa inaan ku biiro burcadbadeedda welina waan ka qoomamaynayaa ilaa iyo hadda waxaa burburay guurkeennii waxaana ku fashilmay inaan ku ilaaliyo weliba aan ilaaliyo riyadeennii waxaa ii soo laaban waayey waayadeennii farxadda badnaa. waxaan kuu sheegayaa inaan had iyo goor aan doonayey inaan nolosheenna u helo daryeel iyo mustaqbal wanaagsan laakiin waxaan raacay waddo khaldan oo aan habboonayn. marka kama quusan inaan dib kuu hanan doono waxaan isku dayey inaan dib u dhiso noloshayda si aan u muujiyo isbeddel dhab ah oo ku saabsan noloshayda.
wax walba waxaan u samaynayey waa adiga iyo carruurtayda dartiin ma kuu qeexi karo qiimaha aad agtayda ku leedahay anigoo ka hor taagan in kastoo mar uun aan kuu sheegi lahaa xilli ay ku habboon tahay wax kasta waxaan rajaynayey inay noo hagaagayaan rajadeeduna waxay dul meeraysanaysay agtaada waxaad tahay iftiin aan hiigsanayey mar kasto waan ka xumahay waxaa dhacay mukhtaar mukhtaar maxaad iga rabtaa oo aad ii soo wacaysaa maad ammaan isiisid ma dayn ayaan kaa qaba aniga dirir walaalow aniga wax dhib ah kuuma soo wicin keliya waxaan rabay inaan ogaado dhibaatada ku dhacda xawakiin waxaan danaynayaa xaaladda xawakiin inaan ogaado keliya walaalow ee qarra ii fahmi waayahay nabaday marka wax yar isug dirirow adigoo raalli ah maxaa jira maxaa iga rabtaa waxaan ku weydiinayaa dirirow lacagta isbitaalka sidee u bixinaysaa waa lacag aad u badan sidaan filaye maxaad ka waddaa sidee u bixinaysaa maxaa kaa gala adiga waxaan kuu sheegayaa inaan wado qorshe cusub oo aad muhiim u ah oo aan filaya adiga laftarkaada inuu ku anfici doono oo ah magaaladan waxaa ka jira dhaqaale xumo baahsan baryahan dambe soo ma oga saaxiib taas kow haye waxaa loo baahan yahay in la fakaro oo maskaxda laga shaqaysiiyo waxaan qorshaynayaa inaan dib u bilaabo hawlihii burcadbadeedda adigana aan kugu casuubo inaad igala qayb qaadato ma doonayo inaan ka qayb galo hawshaas aniga ka fakar lacag la'aanta iyo shaqa la'aanta ku hayso maxaad ku dambayn doontaa waxaa halkaasi ku eg qaybta 9aad xalqadda 11aad ee sahanka nolosha waxaana filayaa inaad ka wada hesheen waxaa haatan la joogaa xilligii aan fikirkaaga dhegaysan lahayn adigoo ka soo qayb qaadanaya qaybta wicitaanka dhegaystayaasha oo isla haddaa soo gelaysa ama fariin noogu soo dir nambarka 2285 su-aashiina toddobaadkana waa ma laga yaabaa dirir inuu ku laabto noloshii burcadbadeednimada haddii ay jawaabtaadu haa tahay kow inoogu soo dir nambarka fariimaha gaagaaban ee 2285 haddii ay jawaabtaadu maya tahana 2 inoogu soo dir nambarka fariimaha gaagaaban ee 2285 su-aasheenna haddii aan mar kale ku celiyo waa ma laga yaabaa dirir inuu ku laabto noloshii burcadbadeednimada ama ogaan inaad dhegaysato sahanka nolosha jimce kasta saacaddu marka ay tahay 2:15 duhurnimo sidoo kale nagala soco barteenna facebookga